wasiiru dowlaha arrimaha dibadda Sacuudiga Caadil Al-Jubayr ayaa BBC-da u sheegay in Sacuudigu ka soo taagan yahay waxa dalkiisu u arko falalka colaadeed ee Iiraan ka wada gobolka. maanta ayaa boqorka Sacuudigu magaalada Maka ku martigelinaya shir madaxeed ay yeelanayaan madaxda guud ahaan dalalka Carabta iyo kuwa Khaliijkuba. Iiraan way beenisay inay ka dambeysay weeraro dhowaan lagu qaaday boqortooyada iyo maraakiib marayay gacanka Cumaan. Liis Duset ayaa warbixintan Jidda ka soo dirtay. hogaamiyayaal ka kala socda dalalka Carabta iyo kuwa Muslimiinta ayaa isugu yimid magaalada barakaysan ee Makka, halkaas oo uu ka dhacayo wax boqortooyada Sacuudigu ay ku tilmaantay shirweyne degdeg ah. Mr. Jubayr ayaa kulankan ku tilmaamay fariin weyn oo loo dirayo dadweynaha reer Iiraan iyo kan dunidaba, kaasoo ku aadan sidii loo joojin lahaa habdhaqanka Iiraan ee gardarrada ku salaysan, waa sida uu hadalka u dhigay. waxa uu meesha ka saaray walaaca laga qabo in dagaalka afka ah ee la isweydaarsanayo uu cirka ku sii shareero khilaafka ka taagan gobolkaas ay colaaduhu ka jiraan. Iiraan ayaa beenisay eedeymaha ah in ay qaaday weeraradii dhowaan dhacay ee lagu waxyeeleeyey 4 markab oo marayay gacanka Cumaan, iyadoo Maraykankuna uu sheegay in mas'uuliyadda weeraradaas ay Iiraani dhabarka u ridanayso. Mr. Jubayr ayaa kulankan ku tilmaamay mid taariikhi ah oo u wanaagsan gobolka. wasiirada kale ee arrimaha dibadda ee halkaasi ku sugan ayaa BBC-da u sheegay hadalkaas la mid ah, balse waxa ay sheegeen in ay ka walaacsan yihiin in haddii Iiraan la go'doomiyo laguna curyaamiyo cunaqabataynada saaran ay arrintaasi xaaladda sii hurin karto. madaxweyne Trump ayaa dhowaan ku dhawaaqay in 1,500 oo askari uu u diri doono bariga dhexe, balse waxa uu sidoo kale sheegay inaanu dagaal doonayn, waxa uuna ku baaqay wadahadal lala yeesho hogaamiyayaasha Iiraan. waxaana muuqata in diblomaasiyiinta Carabta iyo kuwa reer galbeedku ay isdhaafsanayaan fariimo ay xaaladda ku dejinayaan, balse mar ay BBC-du wax ka weydiisay Mr. Jubayr dalabka Iiraan ee ah in ay wadahadal la yeelato dalalka jaarka la ah, ayuu ku jawaabay in la joogo xilligii tallaabo la qaadi lahaa ee aan la joogin wakhtigii hadalka.